mar waxaa jira aniga aan gaaray ilaa iyo 142 kiilo aan gaaray laakiin hal baalin kuma gaarin sidee baan ku gaaray waqti dheer bay qaadatay inaan gaaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العيال وأنا السلام يا ومالين السنينة ومالك كان نوجا برتين هرمركا يجناعسجا يقف السود دقالة وسبعين سنة وحنكسونا هي إن بدن ونفير سنة ينكا إن أدور حيسان دا اللبعتنات إلا يوحكوين وحن ما أنت كهالينا هدير برهال كدجو سدو قفك وجهر إيمان كرو أما وجهر إيمان كرو دبعتوين كجناعسجا أما نولد ولا كلمه overcome your obstacles dhibaatooyinkaas sidoo qofku uga hor iman karo waxaan rabaa inaan afeef samaysto oo aan sheego ujeedada aan isniinta u dooranay inaan lacag ka hadalno ilaahay wuxuu ku siiyay 24 saacadood maalinkii inteena ugu badan 6 ilaa 8 saacadood baan seexanaa saacadaha inta kale waxaan gelinaa inaan dhaqaale soo saarno ama aan shaqaale ahaano qof u shaqeyno ama aan ahaano hanaloo shaqeeyo ganacsi aan ahaano ama labadoodaba yaana mid ahaanina si kala u noolaano haddaba marka maadaama ay noo leedahay muhiimadaas nolosha qofka in uu wax soo saar iyo ganacsi sameeyo baan uga hadalnay sanadkan bilowgiisii qofku inuu financial goal yeesho number 2 inuu qofku samaysto maskax adag oo ka hortimaada ama u diyaarsan inuu goalkaas gaaro mindset fiican inuu leeyahay maanta oo isniintii saddexaad ahna waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka qofku sidoo uga hor imaan lahaa obstacleska nolosha ama businesska saad uga gudbi lahayd waxaan insha Allah taala in siin doonaa tusaalayaal aad fahmi kartaan oo qofku uu ku aqliyeysan karo mondayda soo socoto qofku sidoo u impress gareyn lahaa ama ugu qanci lahaa ma aragtay hawshaas uu ku jiro adkeysigeeda iyo dhabaraadeedkeeda ugu yeelan lahaa haddaba qofku markuu ganacsi bilaabo ama nolosha wax uu ka bilaabo waa normal inuu challenge la kulmo maxaa yeelay challenge-ga aad la kulmayso ama dhibaatada aad la kulmayso waxa ay ku xiran tahay ama ay tahay meesha adiga aad joogto haddii aad rabto nolosha inaad kor u kacdo waa inaad diyaar u tahay inaad xanuunsato inaad challenge la kulanto iyo in aysan ku sahlayn inaad hore u socoto waa intaas aad fahansan tahay maxaa la dhahaa noloshu waa sida labadeedaas gacmood waay markaad goal leedahay koraad aadaysaa you meet challenges laakiin markaadan goal lahayn hoos baad u soconaysaa energy badan uma baahnid waxaa la yiraahdaa hoos aadidu waa automatic waxba uma baahnid laakiin kor aadidu waxaad u baahan tahay in aad ka overcome timaado ama ka timaado haddaba marka qofku sidee buu dhibaatooyinkiisa uga hor imaan karaa dhibaatooyinka marka dhowr nooc kala ah mid waa mid ilaahay kugu dhaliyay oo aad tahay qof gacan la aad tahay qof lug la aad tahay qof aan ability-giisii ama jirkiisii u san dhamaystirneen waxba kama qaban kartid kaas laakiin waxa wax ka qaban kartaa ability-ga ama dadnimada alla ku siiyay ee wax soo saar kale ba wax ka qaban kartaa aan ku siiyo example waxaa jira nin la yiraahdo oo social media-heena ama channel-keena ku jiro la yiraahdo ugaas wuxuusan qabin oo alla subxaanahu wa ta'ala uu ka qaaday laba lugood ugaas asagoo lugala ayuu wuxuu ka shaqeeyaa waliba manager ka yahay stoorada ugu waaweyn ee Mareykanka mid la yiraahdo waliba Macy's la yiraahdo ugaas sheekada uu inooga sheekay waxa kamid intay dadku u yimaadaan ba waxay leeyihiin adigoo curyaana sideed noo caawinaysaa markaas asaguna wuxuu dhahaa anigu curyaan inaan lugaha ka ahay suurtagal laakiin maskaxda kama yahay laakiin in badan oo idinka kamid ah maskaxda curyaan ka tiir marka curyaannimada qofka lagu caayo waxa laga yaabaa inaysan ahayn midda adigu aad qabto laakiin aad ka curyaansan tahay wax soo saarka aad ka curyaansan tahay saad nolosha u horumar leedahay marka obstacleskaga ama dhibka ku hortaagan ay tahay curyaannimo xagga maskaxda ah ama fahansanaan aadan fahansanayn dhibkan ku hortaala saad uga gudbi lahayd example kale aan ku siiyo dhib kasta oo nolosha ku horyaala hadduu dhaqaale yahay oo sanadkan dhaqaale gool leedahay waxbarasho leedahay qoys leedahay naftaada aad leedahay inaad weight ka saarto oo aad iscaatayso waa wax u baahan inaad ka gudubto baa jira mar waxaa jira aniga aan gaaray ilaa iyo 142 kiilo aan gaaray laakiin hal baalin kuma gaarin sidee baan ku gaaray waqti dheer bay qaadatay inaan gaaro
markaan goal samaystay for me inaan caatoobo waa inaan fahmo waaye goalkayga obstacleskiisa iyo dhibaatooyinka hor yaalla waa inay ii qoran yihiin macnaheeda waa inaan maalinle ka dhigtaa saan dhibkaan uga gudbi lahaa maalinka waxaan cunaa inaan fiiriyo maalinkii waxaan qabanaa inaan fiiriyo bishii inaan goal samaysto sanadkii inaan goal samaysto qofka dhibaatooyinka nolosha saasaa laga ganacsigu is the same ma ku tusi karo my financial ganacsi meeshaan ka bilaabay sidaan ahaa maxay le wax la taaban kara maaha laakiin example waxaa kuugu filan qofkii 150 gaaray 95 say ku yimid 65 say uga tagtay oo haddana 140 ku tagtay waa qofku waxa uu u baahan yahay inuu fahmo hadduu goal leeyahay maskaxdiisa iyo mindsetkiisa uu sax yahay inuu fahansan yahay waxbaa kaa hor imaan doona yiisa ku niyad jabinin u adkayso noloshaada marka waxa kaa hor imaanaya breakdown ku samee kala jajabi adigoo u kala jajabinaya dhibaatadu siday u kala duwan tahay hal mar dhibaatado dhan dusha iska saarin kala jajabi dhibaatadaada breakdown ku samee waxaanu maxay yihiin ma waxaaga maskaxdaada curiyaan ka ahaa ma waxaan curiyaan ka ahaano ability-geeda iyo awooddeeda lahayn inta badan dhibaatooyinkan haysta ma ahan in aanan gacmo lahaan lahay ama lug la'aan lahay laakiin xagga maskaxda waaye marka breakdown ku samee number 2 listen is this grow samee dhibaatadaadu ma korayso laakiin adiga waa kori kartaa dhibaatadaadu ma isbedelayso oo markaas ayada ku hortaagan laakiin adiga waa isbedeli kartaa waa ka wareegan kartaa waa ka weynaan kartaa waa u gambin kartaa laakiin waxa u baahan tahay inaad fahanto laakiin dhibaatadu haday kugu soo noqonayso sida nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam yiri qofka mu'minka ah hal god laba jeer laga maqanino dhibaatadaadu waxa ay tahay waa inaad fahansan tahay oo breakdown ku samaysaa tan labaadna aad kortaa oo aad ka weynaataa dhibaatadaada oo aad ka dhisantaa oo aysan kugu soo noqon kareeca haday meel ka qaninto quraanyo haday meel ka cunto dhaqaale xumo haday meel kugu hayso ha iska ragaanin waxaad dhahdaa meeshaan waa ka guuraya waa ka weynaanaya guurida ugu badan ama koritaanka ugu badan oo wax laga guuro ama laga korana xagga maskaxda ugu badan waana meesha dadka inta ugu badan ay disability ka yihiin maanta I don't know waxaan ugu soo daray laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego qof baa tala siinaysa ama dad tala siinaysa qof baa comment kuu soo diray comment uu kuu soo dirayo asaga ma anfacayso adiga kuma anfacayso cid kale ma anfacayso wuxuu asagu sheegayna ma garanay dadka marka inta ugu badan disability-gaas qaba oo xagga maskaxda ka qaba oo ama ku mashquulsan ama aan ku mashquulsanayn inay dhibaatadooda fahmaan inay dhibaatadooda ka weynaadaan waa kuwa aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso tan ugu dambaysa waxa u baahan tahay inaad qabsato ama aad hesho dad go'aan fiican kula gaara ama aad hesho dad input fiican kugu sameeya input dad kugu sameeya ama talo kugu darsada tusaale ahaan anaga markaan Soomaali nahay consultantiga waxa la yiraahdo ama qof talo inaad weydiiso dhaqaalaha sameyntiisa inaad qof talo ka qaadato dhaqaale kaaga baahan tahay laakiin waxa taqaana waxa dhaqaale kaaga baahaneen free talo dhaqaale kaaga ma baahan talada free-ga dhaqaale uma baahan qof kasta inuu kula taliyo rabaa qof kasta wuxuu rabaa inuu tusaale ku siiyo oo asaga muu ku guuleysto asaga muu meel ku gaaro asaga muu wax ku tarto laakiin qofka taladiisu qaaliga tahay waa qofka aad u baahan tahay that's why muhiim ay u tahay haddii aad heli karto qof consultant ah ama dhaqaalo ka sameynaya si uu talo sax ku siiyo inaad ka hesho gabagabada hadalkayga waxa waaye number 1 dhibaatada ku hortaala kala jajabi hal mar ha isku wada dubin waa number 1 number 2 dib kasta oo ku hor yaala ka weyno isku day inaad ka korto number 3 qaybi ama hel qaybo dadeed oo kugu dara in positive kugu dara ama tala ku siiya si aad u hesho aad hawshan uga gudubto aad baan inii salaam yaa walaal